ka marsato maalinimada Ramadaan iyadoo guriga dhexdiisa joogaysa soonkeedu wax ma u noqonaya saailka xiga wuxuu yiri arday jaamacadeed baan ahay imtixaan ayaan ku jira inaan iska afuro ma la ii ogolaanaya su'aasha saddexaad waxa saailku leeyahay oo gabadh haddii ay dhabar furan gabadhu leedahay soonkeeda xukunkiisa muxuu noqonayaa su'aasha xigta gabadhu iyadoo dhiigga caadada leh duruusta cilmiga ee masaajidka ka baxaysa bisha Ramadaan ma iman kartaa su'aasha xigta waxa saailku leeyahay haddii qofku miir doorsoomo maalinimada Ramadaan soonkiisa wax ma u noqonaya saailka xiga wuxuu leeyahay xaaskaygii oo qallihii Ramadaan sooman ayaan u galmooday kafaaradii ma la igu leeyahay su'aasha xigta waxay gabadhani leedahay gabadha ma u bannaan tahay ama dumarka ma u bannaan tahay inay ictikaafaan su'aasha xigta waxa uu yiri qofka muctakifka ahi haddii qof ay qaraabo yihiin uu geeriyoodo ictikaafkii ma ka bixi karaa su'aasha xigta waxa saailku leeyahay zakaatul fitr bilowga Ramadaan ma la bixin karaa su'aasha ruuxa dumar inay makeup marsato ay isku qurxiso bisha Ramadaan guriga dhexdiisa iyo ninkeeda dhib ma leh soomkii ma jabinayo isqurxinta guriga gudihiisa ay ruuxa dumar isku qurxiso bala ma leh sideedabana soomka inuu qofku cadar marsado maydho isnadiifiyo isdhalaaliyo dahab xidho isqurxintu soomka waxba ma yeesho waxay yeelaysa ma leh sideedaba wuxuuna waajiba inaanay bannaanka ula bixin isdhalaalinta iyo haddii uu dee indhaha iyo ka dhibayo oo darar iyo dhibaato uu leeyahay oo jidhka kharibayo taasina waa baab kale laakiin soomka waxba uma dhibayo imtixaanka iyo soomka waxaas waxaa laga yaabaa su'aalaan in meelo kale ka socdaan oo darka qaarkood ay yidhahdaan imtixaanka waa loo afurayaa shaqada adag waa loo afurayaa waxaan hasaashanin waxa laga yaabaa fatwooyin dadka debadda ee taraydhku ka yara debcay taraydhku dad baa ma ogtahay siday isu casri garaynayeen cibaadooyinkii aada u khafiifiyey oo waxyaabo badan ka dulbooday marka imtixaanka qofku uu gelaya isagoo sooman saacado badan ba ha qaata hadduu doonayo laakiin haddii dee qof fulaya uu yahay oo wadnuhu gariiro ama gaajo uu xajin kari waayo dee markaa wuu iska afuri sidii qofkii shaqadu ku adkaato kalunbuu la mid yahay laakiin imtixaanka looma afuro arrinta kale ee ah istixaadada dhabar furanka waa dhiigan dhabar furanka ah soomkii miyuu joojinayaa maya ruuxa dumarka ah ee dhiiggaa dhabar furanku ku dhacay hadday soomi karaysa caafimaad ahaan ay awood u leedahay dhiiggan ka socdaa soomkii joojin maayo iyo salaadii iyo galmadii ninka iyo cibaadooyinkii wuxuu la mid yahay uun qofka kaadidaa ka socotoo kale uu ka istijoonayo ruuxa dumarihi iyadoo caadale masaajidka ma fadhiisan karta Ramadaan iyo bilaha kaleba qowlka culimadu u badan yihiin daliilku xoojinaya raajixay waa maya meelahan jaarka ka dhagaysato masjidku ruuxa dumarka ah ee caadada leh qowlka raajixa waa inaanay fadhiisanayn suuxdintii iyo soomka qofku markuu sooxo bisha Ramadaan waqti ka mida maalinkii haddii uu soo miiraabo walow saacadii u dambaysayba ha ahaatee soomkiisii waa dhammaystirayaa maalinkaa waxba kama noqonayo laakiin haddii uu qofkii sidaa kaga tegay maalinkii oo dhan suuxdinta ah wuu soo qallaynayaa waxaanu la mid yahay qofkii bukaanka ah qofka suuxayma wuxuu la mid yahay kii waala mise wuxuu la mid yahay kii mariidka ahaa ee buka waxay culimada jumhuurku u badan yihiin inuu la mid yahay qofkii bukaanka ahaa ayuu la mid yahay qofka bukaanka ana dee ha soo qalleeyuun baa la yidhi haddii uu soomkiisaa ku dhaafay qayb ka mida maalinkii haddii uu laakiin soo miirsaday soomkiisii waa u jiraa waxaa sidaa ka duwan qofka asaasaqay ee da'da weyn waa qof waa shay uu isagu la mid yahay su-aasha kale waxay leedahay qofkii oo qallo sooman hadduu ku dhaco galmo oo labadii qof iyagoo qallo sooman
soomkii qallaha ee waajibka ay isu galmoodaan kafaaradii miyaa ay ku waajibaysaa jawaabtu waxa weeyaan maya kuma waajibayso kafaaradu waxay u waajibtaa xurmada ramadaan oo la jabiyey ramadaan waqtigeedana waqti cajiib ah oo waqti kale haddaad soo qallaysay intii in leeg iyo ajrigii ma heli kartid marka ramadaan qofka jimaaca ku jabiyey soomka ayaa kafaarada lagu leeyahay qofka laakiin qalla ku jabiyey wuu dambaabay laakiin laguma lahaa wixii la odhan jiray kafaara gudka ictikaafka iyo dumarku way ictikaafi karaan hadday aadaabtii sharciga ahaa ilaaliyaan aadaabtaasoo ay ka mid tahay inaanay ragga isdhex gelin inaanay udgoon ku imanin masaajidka inaanay guuro gelin habeenkii si aanay dee ugu fitnoobin dad kale waxyaabahaasi haddii ay ka aamin noqoto oo dhibaatooyinkaa kale aanay jirin ragga sida uu ugu bannaan yahay ictikaafku ruuxa dumarihina masjidka jaarkeeda way ku ictikaafi kartaa haddii gurigii iyo odaygii iyo ehelkii iyo waalidkii wax u dayacanay aanu jirin asturnaanta iyo aadaabta sharcigaana ay ilaaliso sidiisa waa loogu ogolaya ictikaafka sidii xaasaskii nebiguba sala allahu calayhi wasalam wakhtigii hore ay ictikaafeen qofku isagoo ictikaafka ku jira salaatuljanaaza ma u bixi karaa hadduu u baxo maxay noqonaysaa wuu u bixi karaa laakiin ictikaafkii mutataabica isugu xidhiidhsanaa wuu ka kala go-aya maalan 10ka dambe ictikaaf isku xidhiidhsan baa jiray ama 20ka dambe ayaa diyood wuu kaa kala go-aya marka kolka dambeed soo noqoto ictikaaf cusub baad bilaabaysa sakadan la yidhaahdo sakaatu fidriga iyo ramadaan awalkeeda ma la bixin karaa waa la bixin karaa ramadaan awalkeeda ama ramadaan markay soo gasho sakaatu fidriga waa la qadimi karaa waa se laga fiican yahay waqtiga ugu fiican ee waxa weeye subaxa ciida marka salaada subax la tukado intaan salaada ciida la gaarin hadyigii iyo dhaqankii nabigu sidaas u ahaa kaasaanaynu ku dadaalaynaa laakiin in ramadaan dhexdeeda la bixin karo la qadimi karo waa zakaatun mucajala waa saka la qadimay sida sakada xoolaha sanadka dhexdiisa loo qadimay la mid tahay marka kala garo maxaa jaa'isahoo bannaan maxaase afdala innagu waxaynu ku dadaalaynaa wixii afdala ee sunnaha nebiga waafaqsan sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam